إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عنك سوكينا تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسي جني صبح بقول لغاتن يلي ونوغا بالله يا آيات لغاتن يا شناب من سورة النساء درسيgan ka horeeyay aayadii ugu dambeeyay aakhirkeeda aan ku soo marnay famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida dumarka waxa weeyaan aad ku raaxaysateen siiya meheryaalkooda waa farad ilaahay waajibiyey وقال سعوتي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وحدا بيكوكينا معهانين وإيات خالص وقلنا غطين مركي لقدرين مهركي لما عاوي كدف وحانا سوق جلية وحياراها الدين لا يسكوكو رالين نغراء أن دنبقوا كيمانين مهركي لما عاوي ننكينا أقوليا هاي haddii gabadhii cafido ayadoon gacanta loo gelin ka su-aal sidaasaa soo laabatay marka waaba aayaddaas darsigaan ku soo marnay ka mid tahay su-aashaas jawaabteed su-aal ah ninkii meherkii asagoon gacanta iga gelin ma u cafi karaa waxay tahay haddii uu diyaar la yahay oo inuu iska bixiyo diyaar la yahay oon warwareejin karin meesha ku jirin gabadhuna raalli ayay iskaga noqoto ayadoo cid ku dirqida aysan jirin waxa weeyaan hadday cafido cafisku waa ansaxaya daadana sagiiban bixin diyaar u ahayn ama gabadhii la qalqaaliyey oo waxa weeyaan waxaysan raalli ku ahayn lagu dirqiyeyna ma ansaxayo cafiskaas ma ansaxayo qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi waman lam yastatic qofkaan awoodin منكم إذنك مؤمنين تعالى وإنك مدياي ضولا حقا قننماذا أن يلقح إنه قرسدا من كان أودين المحصنات قبها قرطة محصنات كالمؤمنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فلينكح قرسدا مما شيء وحكمل ملكت الملكي أيمانكم مدبيالكين من فتياتكم قبلهن حالك مدين قبها المؤمنات المؤمنات والله الله أعلم السجر ودال بطن بإيمانكم إيمانكين بعضكم قبلكين من بعض قبلك كالحجر كاهابي فانكحوهن لطها الضومنا قرسلا بإذن أهلهن إليالكود إذن نكو قرسلا وآتوهن قباس الضمراسية أجورهن بيريالكودا بالمعروف سوانا كيدا ليقاموا السية محصنات حال أيهين قبط دورسان غير مصافحات كويب يبابنا غير كود حال أيهين ولا متخذات أخدان صاحب هوسات كوصنا يسانا غير كود حال أيهين فإذا أقسمنا مركا لو غوريو قبها أطامدا فإن أتينا هاتين ليمادان بفاحشة زنو فعليهن أطامدا كركودا وحا أغاضي نصف ما شيء بركيز على المحصنات قبها قرطة كركودا أغاضي من العذاب إقاب حالأوياي ذلك أي نكاح المملوكات عند حد من طول إن قبها الضومدا لقورسدا مركي أود لو وهي قبها قرأة لمن قفوا أصنعي خشية كبقى العنة الزنو منكم رجينا مؤمنين تعالوا كمدياي وأن تصبروا إن أتكسرتان قبها الضومدا قور كودا آخير لكم من قير بران والله الله
غفور ومدن بدافضا رحيم أو نحريس بضا ومن لم يستطع إلهي وإله سبحانه وتعالى آيات في هرمكم وغصوا ورمي دمرك إلهي نجا حرام تنميي وأن ننفرسك كريم وحي كسوا هرينا إلهي الوالين حلاليي هل كان وحا الله هذا آيات كان وآيات داني قد حرطة نمكي آن أولين أدون نقرسكه marka adoonta guursashadeedu shay banaan oo iska banaan bilaa shuruud ma aha shuruudu ku banaaya adoonta laba dariiqay ninka xalaal ugu noqotaa hadduu adoonta milki u leeyahay oo milkiyo sidoo rabaa ku milkiyo hadduu milkiyo waxa weeyaan adoonnimadaas xalaal ugu tahay taas guur lama yiraahdo marka kalimadii la qaybsaday nasiib ugu soo aaday suuqu ka soo gatay qofaasiyay adoonta qofku hadduu milkiyo milkigaasay xalaal ugu tahay guur lama yidhaahdo taas milkiga uu soo milkiyo yamiinka taasuu xalaal ay ugu tahay oo ugu galmoo karaa kaliya waxa weeye markays milkigiisa soo gasho waa inuu ku sameeyaa istibraac hubsasho inay uur leedahay in kale taasna waxay ku dhici kartaa hadday uur leedahayna inay umusho haddii kaleeto is uur lahayna hal caado waa inay ku dhacdo hal caado markay ku dhacdo kadib milkigiisana ay ku jirto addoonnimay xalaal ugu tahay hadday mu'minad tahay waa itifaaq hadday ahlu kitaab tahay addoontaasuna waa sida jumhuurtu qabaan hadday wataniyad sanad caabuda tahay addoon aad iska milkido adigu leedahay tahay ma kuu xalaala aaday iskugu khilaafeen waxa weyn ahlucilmiga jamaahiiru ahlucilmi waxay mareen xalaal kuma aha mar hadday kaafira tahay addoontaadiba ha ahaatee xalaal kuma ahan bal khilaafka ku jira daciif jiddan uu ka dhigay xaafid abu cumar ibn cabdilbari wuxuu yidhi sida ay qoraan ahlucilmiga salaf iyo khalafba marka daawuus ibnu kaysaan laga reebo waa inaysan xalaal ku ahayn oo milkulyamiin uguma galmoo karti marday wataniyad tahay waa inay addoontaadu ama mu'minaad tahay ama ahlu kitaab tahay laakiin daawuus ibnu kaysaan wuxuu ku tegey inay xalaal tahay oo addoontu kala qaad male diinkay haysato mar haddaad milki u milkido waa kuwa xalaal inaad u galmoodtaa qowlkaas waxaa aad ugu gargaaro rajaxay calaamatu ibnulqayim wuxuuna yidhi yowmu awdaas iyo qaybkoodba waqtigii nabiga addoommadii la soo kalimaysanayay gacanta soo gelayay ee nabigu lahaa addoontu xalaal ninka uma ahan ilaa hal caada ku dhacdo ama ay umusho hadday uur laheen nabigu hal mar ma dhihin xalaal ma ahan haddaysan islaamin gabdhahaasuna ma ahayn ahlu kitaab wataniyiin ayay ahaayeen inay markii lasoo qabtay wada islaameenna waa baciid idan qowlka raajixa wuxuu leeyahay xagga daliil ahaan waa inay xalaal ku tahay addoontaadu diinkayna taana haysatee qowlkaas waxaa kale u gargaaray maxamed bin amiin shanqiida adwaa'u lbayaan fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan sidaasoo asna aad ugu nusreeyey yuusan ba ahaan qowlkii jumhuurteen taas waa addoonnimo markaad u galmoonayay hadda aayaddaanu kala hadlaydaa taas waxay ka hadlaydaa guursasho addoontan adiga melihii waa inaad guursataan rabtaa goormay xalaal kuu tahay mar walba xalaal kuma aan shuruud gaara ay xalaal ku tahay addoon inaad guursataa sababto addoon guursigu dhib badan leey dhibkuu leeyahay waxaa ka mid ah addoon haddaad guursato carruurkay dhasha waa addoon sayidkeeda askar maan carruur adugu aad haysay markaad dhasho weliga gabdhaha rabtaa kuu dhasho marba haddaadan addoontii adigu lahayn ee addoon aad soo guursato nin kale loo kugu nikaaxiyo nikaaxaad ku haysataa wiilay dhashay waa u wadana beerta u dirsana gabaray dhashay waa wadana guriga iga shaqaylay sayidka iskale xoola nin kalaa kobcayda ma garat saas darteeda intaad ka wareegsan karto inaad ka wareegsataa marka in alla intaad ka wareegsan karto waa inaad ka wareegsataa sidaas darteeda sharcigu waa cidhiiriyey shuruud gaar ah oo wax weyn dhib ka weyn looga cararayo bisuu ku bannaanta oo waxa weeye koo waxaa shardi ah horta waxa weeyaan inaad weydo dhaqaalaad gabadh xora ku guursato waxaa shardi ah addoonta lagu gura inay mu'minad tahay waxaa shardi ah addoon dhowrsano cafiifada inay tahay waxaa shardi ah inaad waxa weeye zina naftaada uga baqdo dadan guursan ee haddaadan zina ka cabsayn kuuma xalaal ah addoon kalaad ba leedahayba ma kuu xalaal ah sababtoo zina ka cabsanayd sooma ilaah wuxuu yidhi subxaana waman qofkii lam yastatic aan awoodin minkum idinka xaala uu idinka mid yahay dawlan xagga kelinimada dawlku waa wasciga iyo qudrada xagga kelinimada
an yankixa inuu guursado qofkaan awoodin dawlan ka bedelo an yankixa inuu nikaaxsado qofkaan awoodin almuxsanaati gabdhaha xorta muxsanaat saddex macnay qur-aanka ku soo aroortay saddexda macnada waxa weeyaan oo ay qur-aanka kula soo aroortay waxay ku jiraan darsigii shalay iyo darsigeennaan oo walmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allahi calaykum muxsanaadkaas shalan soo marnay waxaa loola jeedaa waxa weeyaan dumarka la qabo oo mutasawijaadka ah kuwaasaa loola jeedaa macnaha labaadna oo muxsanaad loo isticmaalo waa gabdhaha xorta ah macnaha saddexaad oo muxsanaadka loo isticmaalana waa macnaha ah waxa weeyaan gabdhaha cafiifaadka saddexdaas macnaha loo isticmaalo muxsana oo ah gabar la qabo walmuxsanaatu min annisaa darsiga insha Allah ku jirta darsigana waa noo imaanayda fa in atayna bi fahishatin fa alayna nisfu ma ala almuxsanat fa idha uqsimna fa in atayna bi fahishatin uqsimna daasay noo imaanay marka gabdhaha la guursaday muxsanaada la yiraahdaa gabdhaha waxa weeyaan xortaana muxsanaada la yiraahdaa gabdhaha cafiifaadka ee dhowrsanna muxsanaada la yiraahdaa saddexdaas macnay quraanka ku timaada muxsana oo ihsaanku macnaha saddexdaas macnuu ku yimaada almuxsanaati gabdhaha xorta inuu guursado ninkaan awoodin muxsanaadka almu'minaati ee mu'minaadka ah fa mimmaa malakat falyankix ha guursado mimmaa shay wax ka mid ah malakad ay milkiday aymaanuku midigyaalkiinna gabdhaha addoommada idinku aad milkideen ku oo waxay ragga mu'miniinta leeyihiin maan adiga taad leedahay aduu taad leedahay guursan maydi ee waxa weeyeen haddaad baleedahay umada baahid ninkan inaad ka guursato ee waxaa loola jeedaa raggaas mu'miniinta oo kale gabdhaha addoommada ay leeyihiin ka guursada fa mimmaa kii xaggiisa ha ka guursado fa mimmaa shay wax ka mid ah ha guursado minta tabciidiya laga dhigo malakad ay milkiday aymaanuku midigyaalkiinna marka shardigii koobaad waa inuusan awoodin gabar xora inuu guursado shardigii labaadna waa kana gabadha addoontaad guursada waa inay mu'minaadta min fatayaatikum gabdhihiinna addoommada xaalo ay ka mid yihiin fatayaadka almu'minaati ee mu'minaadka marka waxaad guursaydaa gabar addoon ah oo mu'minaad marka iimaana lagu shardiyey iimaankana qayb qalbiyaha ka mid a oo iimaanku saddex shay iska saaray tasdiiqa qalbiga ah oo qofku qalbiga xaqa ka rumeeyo iyo qowlka uu carabka uga dhawaaqo tawxiidka iyo xaqa iyo xibnaha acmaasha laga sameeyo saddexdaas oo la isku daray iimaan lera sharciga dadku marka waxay ogaa karaan oo kaliya waa inta daahirka duu qofkii tawxiidkii ku dhawaaqayo acmaashiina daahirana samaynayo intaasu arki karaa ma ogaa kartid iimaankii tasdiiqii inuu qalbiga uga jirayo inuusan ku jirin ma ogaa kartid welidaa saas daraaddeeda iimaanka axkaamtu ku dareersato ee ilaah nagu addoonsaday waa iimaankaas daahirka oo waxaa la idhahdaa al-iimaan alxukmiyu iimaanka daahirka ee xukunku ku sugnaado qofka iimaannimo loogu xukmiyo waa tawxiidkaas uu ku dhawaaqayo xibnahaas ka samaynaya daahirka khalaas waa intaas amaa in xaqiiq ahaan iimaanka xaqiiqiga waa inuu tasdiiq qalbiga ka mid yahay taasna alla kaliya ogaa kara taas marka xukun kuma xirna daa adduunka ilaah wuxuu yidhi subxaana wallaahu allah aclamu isagaa u ogaal badan biiimaanikum iimaankiina macnaheeda waxaa loola jeedaa xaafid ibnu kasiir waxaa loola jeedaa huwa alcaalimu bixaqaa'iqi aliimaani wa saraa'iriha arrinta xaqiiqadeeda iimaankan xaqiiqadiisa iyo arrimaha sirtooda allaa yaqaan wa inamaa lakum ayuha annaasu aldaahiru min alumuur idinku waxaad leeyihiin mu'miniin dabool oo xukunka aad ku dareerinaydaan qofkan waa muumin iyo ma ahan xagga daahirka bis laakiin qalbiga ma ogaan kartaan idinku qofkan hadduu ku dhawaaqayo tawxiidkii wax naaqid ah oo ka soo horjeeda tawxiidkiina uusan la imaan adiga waxaad ula dhaqmaydaa axkaamtii mu'miniinta bis taasaad kula dhaqmaydaa mar hadduu daahirka iimaankii ka muuqdo wax naaqid oo burinayo ka soo horjeeda uusan la imaanin khalaas intaasaad adiga ilaahay kugu addoonsada amaa qalbiga ilaahay baa ku shaqal ilaah wuxuu yidhi subxaana bacdukum gabalkiin min bacdin gabalka kale xaggoodu ka ahaado tanna waxa weeyaan waa tasliya raggaas awoodi waaye gabar xora waxay ku guursadaan ee addoommada dantu baday
ayaa xoogaa la sabar siina waxa la yidhaha addoommada xanaha ka sartaaginina waxa weeye waa dad isku nasabaatiin oo isku aabbihi hooyaad ka soo jeedaan xukun uu sharcigaa ku dhacay qofkan addoon ka dhigay ma ahane waxa weeyaan asal isku aabbihi hooyaad ka soo jeedaan oo nabi aadani ka soo jeedaan bacdukum gabalkiin min bacdin gabalka kale xaggoodu ka ahaaday fankixuuhunna gabdhaha addoomadaa guursada biidni ahlihinna eeliyaalkooda idankooda ku guursada iska guursa maan gabar ama xor ha ahaato ama addoon ha ahaato iska eriyo duulka ka eriyo ma jirto taas diinta meel kama soo gasho addoon hadday tahay sayidka iska leh weli u maha ninkii dhalay inuu weli u yahay sayidka iska leh oo sharciga islaamka ku milkiyey kaasaa weli u ah isagaa kugu nikaaxinaa kuniya qofka iska leh hadduu gabar yahay kawa gabana addoontaan iska leh ayadiiad ka doontay inuu lagugu nikaaxiya rabaa yaa kugu nikaaxina ilaa gabar waxma nikaaxide oo nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa tusawiju lmar'atu lmar'a islaanu islaam ma nikaaxido walalmar'atu nafsahaa gabadhuna nafteeda ma nikaaxido fa ina azaaniyata hiya alatii tusawiju nafsahaa zaanigad waxaa la yidhahdaa gabadha nafteeda iyadu isnikaaxida gabadha nafteeda isnikaaxida zaanigataasaa la yidhahdaa zinadaas aad ay hadda u soo qabteen weliba inta lacasay mogta shay kasta waxa weyn horaa loo wadaa hadduusan diina diinka meeshiisa nabigu ku ogaayaa lagu sugaa haddii wax lagu daro shar un weeyaan wax qayru kuma soo darnaan diintu inteedii hore wax laguma dari karo haddii qofku yidhaha waxaan ku daraa waa fasaadun bis ila bidcayi xara sharu ku daraa laakiin adduunyada waa la hormariya hadda fiiri inta la yidhi waa la hormarina wilaayadii iyo gabdha xariddii sidii loo hormarina hadda waxaa la gaaray gabdhaha labada musaafeeyo wadaadada meelaha qolalku nikaax u qorayin kuwaasaa la musaafayna gabadhan waxaa loo keenaa wadaadkan waxaa la leeyahay wilaayadaadii wadaadkan ku wareeji gabadh wilaayadaad ya ilaahayba ma siin waa been markaasa inta loo keeno ninkan magaca wadaad leh aa la leeyahay gabar ninkii ay heshiiyeena keena ninkaanuu soo wada markaasuu leey wilaayadii ku wareeji ninkaan markaasay leedahay waa ku wareeji waa iska miskiin jaahilad hay wareejo haydaa islaamku dushay laaydi waa been bis ninkaasaa la musaafayna marka ninkaasu gaari la raaca kanuu wada kanuu markuu walla weyn geeyo uu leeyahay yaygu nikaax waa tii lagu dhiiba wilaayadii markaasuu leey waa kugu nikaax intaas isla soo laabaan labada tegi hadda gabadha musaafeeyo soo moogi taas halkaas inay gaartay zinadu markuu soo laabtu leey waa ku qabaa ninkii waagi aad u dhiibto wilaayadaana igu soo kaa nikaaxin marka waa zinow gabadha kale naftayda nikaaxina ama nin kale masaafe ama iyada masaafeeye iyada tireedaaba beenbeenta u ekeedba kanu waaba ka sii dilida taada taasaaba beenbeen xoogaa dadka lagu qalbi karo u ekeed kanu waxa weeyaan waa un sii xumaantii xumaan lagu daray calaa kulli xaal nabi maxamed aa yidhi zaanigad waa gabadha nafteeda nikaaxida waa kaasaa zaanigad marka addoonta ma nikaaxi karto ay leedahay qof kalena ma nikaaxi karo idankeeda la-aanteed maxaa la samaynaa marka waxaa addoonta gabadhu leedahay nikaaxine gabadhaa sayidadaahi addoonta iska leh ninkii nikaaxi lahaa ninkaasaa nikaaxina wuxuuna ku nikaaxina biidniha inay ayadu tira nikaax meedaa ayadoo ay iska leedahay ayadoo haddaysan bixin lama nikaaxi karo ilaa waa xoolaheedii ayadiina waxma nikaaxi karto maxaa la samayn sayidada iska leh addoontaan ninkii nikaaxi lahaa hadday aabbaheed yahay daan aabbaheed nooyn awowgeed ninka weligeeda ah sayidada kaasay u idmihay leedahay addoontaan ninkaasaa siiye ku nikaax kaasaa nikaaxina oo weli u ah addoonta gabdhuhu ay iska leeyihiin fankixuuhunna guursada biidni ahlihinna eheliyaalkooda addoommadan ehelkooda dadka iska leh ehelka maanta waxa loola jeeda dadka iska lahaa kuwaas idankooda ku guursada weligaas kareed xataa addoonka laftirkiisu addoonku ma guursan karo dee sayidku u fasixin sayid hadduusan u fasixin oo nabi wuxuu yidhi ayuma cabdin tazawaja bikayri idni mawaaliid waxayn addoon kasta oo guursada ayadoon dadki iska lahaa u fasixin fa huwa caahirun waa zaanig isaguna addoonka ninka laftirkiisa markuu guursanaa waa in waxa weeyaan sayidku u fasixina guurso kan gabadha addoontaana waa in sayidku nikaaxiya hadduu nin yahay hadduu gala yahay qofka sayidadaa iska lunaa waxa wey weligeeday leedahay nikaax ilaa wuxuu yidhi subxaana wa aatuuhunna
gabdhahaas addoommadaas siiya ujuurahuna meheryaalkooda bilmacruufi shay wanaagiisa la yaqaano ku siiya ha meermeerinina waa addoon ha dhiinina ha yasinina ha liidinina ha ka wareejinina si toosa idinkoo qalbigiinu raalli ku yahay siiya muxsanaatin xaale ay yihiin gabdhahaas addoommadaahoo kuwa dhowrsan muxsanaat maanta waxaa loola jeeda cafiifaad halkan waa macnihii saddexaad muxsanaatin ee cafiifaad wey gabdha dhowrsan maxaa la yihiin siiyo meherkooda marka gabadha addoonkaa guursayda waa inay cafiifa noqotaa hayra musaafixaatin kuwa biyo daadinaya gayrkood waxaa la yihiin sifaaxa waxaa la nikaaxa calanka oo gaaladii hore waxay lahaa jireen laba zino oo iska calan oo waxa way gabadh halkaas joogto oo ninkii u tagaba aan gacanta ka celin mid sifaaxa la yidhahda iyo gabadh saaxiib gaara leh oon qof kale aqbalin saas darteeda way inkiri jireen aaday u inkiri jireen midkan calanka wayna la yaabi jireen waxay dhihi jireen waa foolxumo laakiin gabadhu inay saaxiibad samaysato mushrikiintii hore ma diidi jirin gabadhu inay saaxiibad samaysato waxa way mushrikiintii hore qaar ka midu ma diidi jirin laakiin midkan sifaaxa saaxiib macnaha gabadhu inay samaysato ma diidi jirin mushrikiintii hore laakiin midka sifaaxa calanka ma aqbali jirin waa foolxumay dhihi jireen oo gabdhaha addoommada iyo abaganaaba lagu yiqiino gabdhaha xorka maya laakiin labadaba ilaahay waa arrin inay saaxiib samaysato iyo inay caan ka dhigto labadaba weysin waa caaran ilaa wuxuu yidhi subxaana muxsanaatin xaale ay yihiin kuwa dhowrsan siiya meheryaalkooda hayra musaafixaatin kuwa biyo qaadinaa gayrkood xaalay yihiin walaa muttakidaati afdaanin kuwa saaxiib hoosaad samaysanaa gayrkood xaalay yihiin faidaa uxsinna haddii loo guuriyo gabdhihii uxsinna iyo axsanna waa laba qiraa'o aayadan aaday mufasiriintu iskugu khilaafeen macnaheeda maxaa loola jeedaa laakiin macnaha loola jeedaa waa haddii loo guuriyo laba qowlaa ku jirta uxsinna in loola jeedo hadday islaamaan gabdhaha addoommada iyo haddii in loola jeedo uxsinna haddii loo guuriyo labadaas qowl aa ku jirta qowlka raajicaana waa in loola jeedo faidaa uxsinna haddii loo guuriyo waxaana caddaynaya in qowlkaasu yahay qowlka sawaabka siyaaqa qur-aanka waxa lagu fahmo waxa ugu weyn waa siyaaq waxa ka horreeyey iyo waxa ka dambeeyey siyaaqa fiiri gabdhaha laga soo hadlaayey waa mu'minaad horaada loo soo sheegay addoommada laga soo hadlaayay addoommo mu'minaad inay yihiin hore loo soo sheegay waman lam yastatix minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat marka gabdhaha addoommada laga soo hadlaya mu'minaad waaba ahayo marka daahir ma aha in haddana la yidhaha hadday islaamaan ila horeba mu'minaad inay u yihiin lasoo sheegay marka siyaaqaasaa diiday waana sida xaafidku yidhi ilaa wuxuu yidhi subxaana faidaa uxsinna gabdhaha addoommada haddii loo guuriyo fa in atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin zino fa calayhinna korkooda waxaa ahaaday nisfu maa shay barkiis cala almuxsanaati gabdhaha xortaa korkooda ahaaday min alcadaabi cadaab xaaluya haddii gabdhahaas addoommada marka loo guuriyo nin waxa loo guuriyo kadib ay zina ku dhacaan ayaga xadkoodu waxa weeye gabadha xortaa inta la ciqaabo barkiis gabadha xortaa ciqaabka la ciqaabo barkeeda la xada marka gabadha xorta waxaan soo ogaanay hadday tahay waxa weeye gabadh bitraana waxa weeye wiil iyo gabadh waa isku mid boqol kadaashay lahaayeen azzaaniyatu waazzaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa 100 jald marka boqolay ahayd haddii guur calaala markay soo maraan ka galaan ninka xortaa iyo gabadha xortaa ay zino ku dhacaanna dhagax in lagu dilo marka dilka lama kala bari karo waxaa la kala bari karaa waa boqolkii kadaash idan marka gabadha addoonka ah markay guursato kadib hadday zino ku dhacdo 50 kadaasha lagu dhufan aayaddan marka waxay waxa weeyaan khasisaydaa cumuumkii aayadda suuratu nuur الزانية اللي هو اسم موصولة قلت لصورنا عشان موصولة اللي هو اسم فاعل ماركا اسم موصول كاسا كان العموم لك الزانية والزاني من كستو زانية هي قدر كستو زانية واحد بقول كباش فوق خيرا
عموم كاس مرك آيات دانا خصيصكي عموم كاس آيات دانا خصيصكي وحوين هداي قرار الدورة طهي لغد فما بقرة برا لغد فما هدو وحي من أدونا يهين هدو من أدونا يهين وحا قصيصي قياس كالله قياسنا على الأمن أدونت حاجة والنفي الفارق وفرق يأبع الملك مناطق حروف عن عرادنا وحويان وأدوننا وغبتها ما دام مناطق عن عرادنا وغبتها وقرب لي أدونك اللي يربطها لغدفته منك أدون كان وعلم دبار لغدفنا قياس كالله خصيصيا آيات سورة النور آيات أنك مفهوم كده فإذا أقسمنا حتى يقول لي ولو قولوا فإذا أقسمنا لك لو قولوا قبل أضمرها فإن أتينا حتى يلينا بفاحشة زيرو فعليهن كركر وعاري نصف مع شيء بركيز على المحصنات كما حتى كركر عاري من العذاب عالي هاي عقاب لك حتى لو قولوا أزريستان كوارد لو قولوا حتى منك أضون كأزريستو أنا قرأت أدونتا يتكوّن لو قولي اسكو قراءتنا العلم ده أنا واحد مراهدين حتى لو قولي وحدا بكوكو معاني وحدا كوكو معاني لكن جماهير أهل العلم واحد مراهدين هدين لو قولي هي حتى لو قولي واسكو من قفك أدونتا يدوز ريستو كنتنا لغدفان سببتا وحويان علماء يراهدين عبد الله بن عباس قولا لبورييه علماء يراهدين هدان لو قولين حد كوكوضا معهم حي قليشلين مفهوم المخالفة فإن أتينا فإذا أقسمنا هدين لو قولين ألي وحيرانا هدان لو قولين وإن حد كوكوضا عين ما دام اللي هدين لو قولين هلو نفتو كما حركة انت نقول فكرة مفهوم المخالفة وعن كفانا يرانا هدان لو قولين ليس عليه شيء كذا كفانا لكن جمهورته وكتبوا رسول محمد الأمين الشديد أبوه البيان كفيرية وإلى أن المفهوم كاسولا مجمل ما صحيح ومجمل سببتها هدان لو قولين وعليك كانت المفهوم مخالفة إلا إلى هدان لو قولين بقول كيف هالغلف وعليك إلا هدان لو قولين كنتم كي هالغيرين وعليك كانت هدان لو قولين وحرية هالغلف إتوا أقبلك صريح معها هدان لو قولين وإيه الغلف مفهومك ومجمل سنة الصريحة أعديري أو طهي حديثك زيد بن خالد الجهني هي أبو هريرة صحيحين ككل النبي قال ودي أدون عنقول صامر حديثك زيد بن خالد الجهني هي أبو هريرة صحيحين قال ودي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدون عنقول صامر حديثنا كل على كوارا نبي حبيب شاطر أيوه وكذلك وحصل صوتا حديث صحيح المسلم من حديث علي بن ابي طالب واخذ به علي بن ابي طالب يقول يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من احسن منهم ومن لم يحسن بدو الدومدي حتى كبله مدك يقول صمر كان صمر معايا أضام رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنا كل عضي مركز النبي يقول عن بيتنا صوت شيطان وأتبين أيضا مرضو أمشان عركو لي كسعضو وعن كبقى هطان شيط وإنه يقول ما تصود دلنا لا يمطله مركز الاسكدة ينحكي الدب وغربه نبي غنقول شيط مركز الأحسن وادي وانا أشد سيبك عن هذيش حال الدل ونبه المبتل كنتم قرداش كله فالي حطيب أمولك كنتم كنكعب سويت هذي مركز دب وغربه نبي غير أتركها حتى تمثل حتى حديني إلى إليق وكبر marka qofka hadii ma aragtay uu asagoo wada iska jilicsan xadka ku dhacay xadka uu sidii ahayn waa laga dibdiga dibdiga waa la iska dilay la dilaba u qorna sharci islaam laakiin xadka duusan dilahayn qofkina uu jilicsan yahay xadka diba looga dhiga raxmadda islaamka fiir hadda markuu raado lagu dhifan hadii yaanu laga kacay dan laga kacay waxaan aad liitay dilna uu sanaayna waxa weeyaan وراء حتى اللي فيه أصلا وسأقول لي أنا وجود فنا هذا بقول كرجاش أقول أنت اللي سقط طلعانية يا رب بقولة وجود فنا خفش حلمة خلاص اللي دل بنابه مكت حاجة كله في البيت
marka waa noocaas marka hadday guur soo martay haddii kala doonta waa isku xad ilaahu uri subxaana dalika alqalbu ishara nikahul mamlukati inda cadami dawl algu ishara dalika in addoomada la guursado haddii dhaqaale loo waayo gabdha hora lagu guursadaa liman nin ayuu u sugnaaday khashiya ka baqa alcanata zino minkum idin kala gena muminiinta xaalu ka midi waa qof zine ka baqay bis qof aan zine ka baqin xalaal uma ahan addoon inuu guursadaa qof zine ka baqay isceli waayey taas weeyaan ilaahu wuxuu subxaana wa an tasbiruu inaad sabartaan oo nikaaxa addoommada ka sabartaan oo nafta ka celidaan aana khayr lakum inin khayr badan ayla carruurtii iyo addoomano khayr marka inaad iska daydaana inin khayr badan wallaahu allah gafuurun waa la dambi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi yuriidu allah wuxuu doonaa liyubayina lakum inuu idin caddeeyo wuxuu idinka xarimay iyo wuxuu idin xalaaleeyey oo wayahdiyakum idinku hanuuniyo idinku toosiyo sunana aladiina dadkii waddooyinkooda min qablikum idinka idinka horreeyey wayatuuba calaykum ilaah inuu idinka toobad aqbaluu doonaa wallaahu allah caliimun waa mid aqoon badan xakiimun oo xikmad badan wallaahu allah yuriidu wuxuu doonaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo wayuriidu waxay doonayaan aladiina gaalada yattabicuuna raacaan ashahwaati shahawaadka an tamiiluu inaad ka leexataan diinka maylan leexashadaasoo cadiiman weyn yuriidu allah wuxuu doonaa an yukhafifa inuu ka fududeeyo cankum xaggiinna wa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray daciifan xabiya mid taag daran axkaamaka qur-aanku jideeyo waxaa la daba dhigaa haddana hanuunin iyo hidaayaad oo dadka lagu hanuunina leeya waa ilaaliya masaalixaa ku jirta wanaagaa ku jirta waxaa jideeyey alla xakiim ah marka qur-aanku axkaam sheego hidaayaadu daba dhigaa dadka axkaam aad u ballaaran aayaad kale lagu soo sheegay ilaahi weyna subxaana wa tacala axkaamtaas wuxuu leeya ku socda ilaahi weynaa wanaagu ina la haraa dantiinana waa yaqaan gaaladuna inaad luntaan inay la haraan ee axkaamtaasa ka leexanin oo gaalada ha raacinin yuriidu allah wuxuu doonaa lakum idinka idinla doonaa liyubayina lakum inuu idin caddeeyo maa axalla lakum wamaa xaram wuxuu idin xalaaleeyey wuxuu idinka xarimay ilaahay inuu idin caddeeyu doonaa wayahdiyakum ilaah inuu idinku hanuuniyo idinku toosiyuu doonaa wayahdiyakum ilaah inuu idinku hanuuniyuu doonaa sunana aladiina kuwii waddooyinkooda min qablikum idinka idinka horreeyey yaa waaye alambiyaau wa atbaacuhum waa nabiyaalka iyo dadka nabiyaalka raacay ee ilaah dariiqooda raalliga ka noqday ee ilaah dariiqooda jeclaa ee dariiqoodu jannada tegey kuwaas dariiqooda ilaah inuu idinku hanuuniyu rabaa marka axkaamta idiin jireeyey oo layley waxaana xalaal waxaana xaraam wayahdiyakum allah inuu idinku hanuuniyuu doonaa sunana aladiina dadkii waddooyinkooda min qablikum idinka idinka horreeyey min alambiyaai wa atbaacihim waa nabiyaalka iyo dadkii raacay ee ilaah dariiqooda raalliga ka ahaa ilaah inuu idinku toosiyuu rabaa wayatuuba calaykum ilaah inuu idinka toobad aqbaluu rabaa axkaamtaas markaad ku dhaqantaan wallaahu allah caliimun waa alla ogaal badan ilaah wax walba og weeye allah axkaamtaan dejiyey ma aha banu aadan jaahila oo aan ogayn wax ma ahan xakiimun ilaah waa mid xikmad badan xukun walba meeshuu dhigay xikmadaa ku jirta wallaahu allah yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo oo axkaamtaas inta raacdaan uu ilaah idinka toobad aqbalo wayuriidu waxay doonayaan aladiina kuwa yattabicuuna raaca ashahawaati shahawaadka yayihin kuwa shahawaadka raaca wuxuu yidhi xaafid ibnu katiir atbaacu shayaadiin min alyahuudi waannasaara wazunnaat wey waxaweyn dadkii waa labo alambiyaa wa atbaacuhum nabiyaalka iyo dadka raaca waa dadka ilaah raba dariiqooda in la maro dadka kalena waa maxay atbaacu shayaadiin dadka shaydaanada raacay oo ah kirishtaanka yahuudda iyo dadka muslimka ah laakiin shahwada ka daba dhaxay dadka moogtahay fasaada waxaa jira muslim ah laakiin inta shahwada ka daba dhaxay waxa weeyaan doonaya inay ka insaaqaan waxa weeyaan axkaamtan islaamka soo ma jeedin axkaamtan islaamka culays u arka ee dooni lahaa qofka inuu firi iska noqdo xor iska noqdo waxa weeye wuxuu doono ku hadlo wuxuu doono cuno
والدولة عدو وليش الدولة كل شهوات بيتو ولا إذا أساسا مسلم فيه بقى مو جدا دول دولة قمرة عدو هدول دولة الزنيستو اسكبتم تو ليش الدولة كبقوا سلام وسنتو كن ساسنا المسلم يكون نقطة بكرة راجل سمو أوي مركا قوة واحد دولة يقل الفلالة الدين كالي الفلالة أطباع الشيطان فكروا على راس أطباع الأنبياء هي أطباع الشياطين إلى الله سبحانه ويريد واحد دوليان الذين كوا يتبعون الراحة الشهوات شهواتك وكوا الشيطان كالراحة أن تميلوا إلى الليحتان والدين كاليحتان تاسك الليحتان ميلا الليحة عظيما وين يريد الله يقولون أن يخفف عنكم من الكفر إليه وخلق الإنسان كوالا أبرا دمان ضعيفا عاليا مثل وما الصبر كرو سيدرت إلى عرفة منك أولي يا إبرا خاصة إليه أبو بنانا وربع دونت إنه بورسل ويسكب ضعيف من آدمك سبر كيس ويري قال تعالى إلى وحيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم إيانو لا تأكلوها عنننا أموالكم ماليالكين بينكم بحدين حالة أهدين بالباطل باطلكم عنننا إلا أن تكون ماليالكين لا تماهن تجارة قناعسي تجارة عن تراب اسكر الله عن شحق كاهاتي تراب واسع منكم حقنا كاهاتي ولا تقتلوا يهدرمنا أنفسكم نففيالكين إن الله كان الله هو هذا رحيم رمتنا حريص بلان بكم دين كيرين حريص بلان ومن يفعل قفك سنية ذلك وحل غرابي إدوانا حدقل بدرتدو سنية وظلما غردرتدو سنية فسوف مرضا به عن مسليه قفك اسقريد دونا نارا وكان وقوة هذا ذلك الإصلاح جرينت النار تلقرية يصيرا متوفض على الله ألا كوركيسة إن تجتنبوا هذا التفضاتات كرائل ما شيء كويس ووين تنهون لنكرر عن حديثة مكفر وأسطرينه وقرينه إلهي عنكم حدين سيئاتكم دنبيالكنا يريا وندخلكم وإن دليلنا ندخل مكان الدليل تيسو كريما ولا كبرا إلهي وإنا سبحانه وتعالى آياهنا وهم مؤمنين تورغيريا مالكوذا إلي حرامكم عنان نفتوذا إلي الدلان وحا إلى كحرنا إلي كبعان إلى سبحانه وتعالى وحيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقكم إيانو لا تأكلوها عنمنا أموالكم ماليالكين بينكم بحدين حالة أهدين بحدين مالكم يالو بالباطل باطلة عنمنا ومعنى بلارا بالباطل باطل إذن وحاكي بالباطل باطلة عنمنا باطل كسوحي سوكرية دمان طريق كسطة وحرامه إلهي حرمني وحاولين رباضي يا سيد دليل رباضي لغو عنو وبيع إقاب رباضي لغو حمارك يا سيد دليل قناة لغو كلا عنو لالوشك يا سيد دليل لعن الله الراشية والمرتشية نبي محمد أيري صلى الله عليه وسلم نعلك الله كردو قفك اللالوش كبحية إنك وحكمنا يا اللالوش كسيير وحي حكم نعلك الله كردو متك قاتل اللالوش كقابقا نعلك الله كردو قادرك اللالوش كاسا سيد دليل waxay soo galaya dhaxi iyo isbaaradii oo dariiqa loo istaagay gacanta loo taago dadka waxay soo galaya tuuladii oo dadka la xado waxay soo galaya badeecooyinka dhacay iyo badeecooyinka xalaysan oo la gadayo dawada xalaysan ee aan tayadeedu lahayn la gadayo caanaha la barxayo waxay soo galaya ay dariiqa kasta dhakhtarka aan cilmigiisa ku shaqaysan ee waxa weeyaan qaab kale u shaqaynayo أي طريق كسته أو مالك الوقاضة وحسوق لي هنتد الدولة إلا قرانيو فيقفك وحوي النشر اللوبي بدا وكفر قبصانيو إلا وحي ورمالك بهدي من يالا بابل هتعوني منه إلا أن تكون إلى الأهاتم معنا مالياك تجارة غناسي تجارة راسو أن ترابي اسكو رالي هنش حق دكاها غناسي أترالي اسكو بتهين إلي تايمانا ترابي راسو منكم حق دكاها آيات الإمام الشافعي وحو الدريشري إنان بيع أنسحن إلا قبول معنا ما يقدرت وكاقت خاص على ترابي على الرباوية ترابي غانا قولك لقوء ذاكرا ترابي غانا قولك نسكريكرا ما يغسي ستة وكاسي خاص ولوك الغاط خاص على الرباوية لكن وحو ديني بيع المعاضات بيع الربا بيع المعاضات بيع المعاضات بيع صومالك مطانا أوليان أي من سشان براس وعشان يطرن في سوقه اسكلت كده في العيت مسكو صار ما حد يستقالنا ما يقص يستقي وخاص يستمر تتبع يك
soomaalida baycu lmucaadaat alala beecaas shaaficiyadii laakiin waxaa qaba saddexda madhab oo kale jumhuurta madhabka waxay qabaan waa saxa waa maalik waa abu xaniifa waa ahmed ibnu xambal waxay yidhahdeen waa ansaxaya sababtaa waxay yidhaahdeen raali ahaanshaa ilaahay shardiisa maahan raali ahaanshaa waxay yidhahdeen qowlku waa tusaa mayga siisatay waa kaa siistay waa tusaa raali ahaan ficilkuna waa tusaa imisa waa 20,000 isii waxay raali ahaanshaa tusee ilaahayna raali ahaanshuu loo shardiisa maaha إلهي وين قول ونقول أدون صدق المجر أو إذا قول بدل هبان لا به بيع وانصيح ما قول الله لي المجر مركا فعل القراص سايرة مع الله سيدا قول قلوطس سيمجد مركا وانا سيدا يسرق خرعة أدو على لفظ الشرع ونقول أدون سيمجر وليا سيستر الشافعين الجبل كود ووحي الحيمة الشافعين الجبل كميبا فعلا بيعوا المعبات واللو قولي قال الله واكل قادم وحي لنا الله واكل قادم شيء محقق وشيء جيه شامبadaas iyo saabuunkan yar iyo caanaha iyo saliidan yar waxay raandeeyo mucaadaad lagu wado laakiin wax weyn ma kala gada gurigaana la kala gada gaariga la kala gada mayga siisata weeri gaarta arrinteeda markaas oo kale bal markaas badna markaas yimid saasna ay mala gabala u kala qaadeen marka wasawaabu bay'u mucaadaad ansaxayo qowlka sawaab shakina aan lahayn raalahan shaqaduna tusaya soo la jeedin waxa kamida raalahan shaqa بيع الراليان شدي سواء كمدا خيار المجلس سيدي حديث صحيحينك وتصيو لابن محمد صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لما قفت وحكلا قضبتين خيار إليهم انت يسنكلك تجيب معناها قفت وحكلا إني سواء انتاس وهو مجلس يستطلوا كاس يستوالوا كلا بحق يد بإذن فلا حد يدلوري انت يقول تشوفتان شرع إسلام تقفل بوحكلا انت ما كلتين قف لمدين كيرا بكلا شرع الاسلام خيارا ما تفائديس وايق شيء ما ان عدين قرر وحر على الاسبوعيه ما قرر وحر على الاسبوعيه او قبو او دجن على هذا ضف وايق شيء عرف ما هو تمجد انت ولا جوتان كيرا بكلا شرع الاسلام وشرع ما هو والله انك غديري ان عدين لما رب شرع يا رب هذا كلا تكان كلا غلطين هو تجي سوق سو مري ما كلا بقى طبعا أقول إليه إحسان سنيني ما كلا بقى خلاص ويجي ويواجه مرة كلا تكتان وحاكم إذا ترابيها خيار الشرط أو صدح مع الموت اجتماع أيها اتفاق كده عارف إنه كلا كانوا كل شيء صدح مع الموت ولما المسلمين تقول أي كل اتفاق بنا فلا عاون كالقتنا كده صدح مع الموت كسو فيرسو كسو باراندك صدح راس مع الموت طيب ما تبع ويواجه أيضا waxay kamid taraabig laakiin kaas waa isku shardiyo waxa kamid oo taraabiga soo galaya khiyaar hayb waxa la yiraahdo waxa weeyaan ceeb haday bareecada ku soo baxdo ceebtaas oo markii hore laga gaday qofka ay lahayd wuxuu xaq u leeyahay inuu ka laabto ayuu xaq u leeyahay qof inuu ka laabto wuu hal sano kadib alla ka dhigo di ceeb soo baxdo xaq u leeyahay inuu ka laabto qofka يعني حق إسكالية حدوثنا سوف صندرين وعاصر وحي سوكالية وحويان إلا تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض قال تعالى له وحيري ولا تقتلوا الظالمين أنفسكم نفتيالكن إن الله كان وقوع هذا رحيما مثل حريص بدن بكل دين كيمين حريص بدن إلا وعلم حريص بدن نفتي الله الظالمين هل رجل نفتي الظالمين لما أنه أي يكون فصيرا أهل التفسير كا معناه كود وحي تاي وحا الله إن كحرمها كبعي منه وحي إلهي إن كحرم تنميين كبعي منه نفتي من الدين تأيي هلاك دمان معاصرة ها تدكى مسلمين تأدينيدو ها تدكى انتدو بالحرام تكو قادنيدو ها توحي أفلقادده ونفتي مهدلنا وحي الله إن كحرمها كبعي منه وقولك كذا وتفسيرك وانا صحيح صريحة معناها لما بوحي تهي أريد هيسجل إلهي رحمتي سواء كمدا أمدا إلهي بأون حريستي إلهي وين أمدا بأون حريستي أمدي هراء وحد كمد أهاجر إحكامت إلهي صريقف كده مسجله بل إلهي أجائبتي سفير يا رحمته أمدا بأون قال محريستي من قال فيري وإذ قال ربك وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم عجلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم نبي الله موسى
marka ay weynka caabudeen wuxuu ku yidhi qoomkiisii waa qoomkaygiio naftiinaa dulmideen rabbi u toobad keeno islaayo markaasay birta inta isla galeen mufasiriin waxay dhahdaan 7,000 kun ay hal maalin iska dilay ilaahaana ku addoonsaday oo ku waajibiyey ma garad waxa weeye ilaahay ummaddan waa ka qaaday taas ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلهي وليس النصار سيدا أصارت مدينة جهري هذا المفسرين أكمل وليسها وحويا توضى ما تقول توضى لأنه يسجلوا إن هو أدوصري أنك إلهي وإن الدين كان كمان مدبين قفك إنه يسجلوا بالإله رحمته سنبال فيه ما قرأت إلهي هو النصار وليس كذا مديه ورساتك حديث المسلم كما أقول صدام ربي وحي يقول النبي نعم وفي رواية قد فعلت بين كيان إن صار ما ينكو أدوان سنة استشاف مركا وإذا سيسترد إذا بلس كبدا إلهي إنه أدوان سنة قفك إنه إسدلو وحال شرعنا لغاد لغي كبائر تقوى وينتكمل فالفير بإله رحمة صفير والنبي صلى الله عليه وسلم وحيري قفك النفتي سكود لبه birta gacanta loo gelina markaas naarta jahannama inta lagu tuuro uu isku jeexjeexa birtii isku jeexa qorshe iskaga soo rida fi naari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan sabab ku waarayo wala naarta nabi sallallahu alayhi wasallam qofkii naftiisa sun ku diro sun cada illa badana sun qaara marka isdirayaan nabi sallallahu alayhi wasallam suntii gacanta loo gelina yatahasahu fi naari jahannama خالدا مخلدا فيها أبدا سوى النار تكوار يسنتا نار تكون أبدا نبي صلى الله عليه وسلم قفك بورس كالطورة إساس اسكول ديلا فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نار تكون إذا بور جهنم كنت على ليس كالطور مروبا سوى جهنم أنا أقول بيراك هاي ما قرأتي نرجع حديث صحيحين كنا كلها سيدا أستركينا إلهي وكحرنا قال أيضا ما كوحي أي وريراه واسكيلا ويسدل دلها هكا السلطة واستحيا أنا السنو العدد قال سجلة ويسجلة قاركود قاركاني وسكول بقلاني وسكول طورة وحويا وكفرارة بغن كود أنا الدين كيالي إلهي كما الدارين ما قرأته قفل نسكت دلوبة وحويا أسوه انحرافي ويبيعي كفر لكن دين كيالي كمت معه ويبقى عدد ذا اسجلي وهذا ويكان على مجالنا ما قرأته فرما ووضعي جرتي لكن وانحراف هي الدين حمو قرار كيبا وحويا انقرار اللويلة انشعلابي ورويل كان أركها كان يراجين قاس اسكوب الشيء فرقنا اسكولاش الدين هذا كان على سوق حوالي كان عليه سمو جدي سمو جدي النفط كان على يده هيسي دولي ما تلقبتين قمت ما كلا كل طارته يكون بركان سنه يصلى ما كان نفط بحي لا اله الا الله والله يسميهم واحد يده هيسي يدكما يدا النفط كان على وهلحي سمو جدي markay nooladay dhigaysan jirtay Soomaaliya qofkana wuxuu ku noolaado ku dhinta سوما جيدي مركا على كل حال إلهي وإنا سبحانه وتعالى وعلنا حريص بضان ونغمع الدونسان إنا إسدلنو إلهي وإنا سبحانه ولا تقتلوا هدلنين أنفسكم نففيالكين إن الله كان الله وقوابي رحيما مثل حريص بضان بكم دين كينين حريص بضان إلهي وإنا سبحانه ومن يفعل قفك سنة ذلك أي ما نهيكم عنه وعلى ينكرر oo waxa weeyaan maalka inaad baadil ku cuntaan ayaa kamida naftiina inaad dishaan qofka sameeyo udwaanan xadgudub oo waa maxay waa og yahay waxaan ilaahay inuu reebay oo xaraam yihiin bacda ilmi rabbi ku caasi waa xadgudub udwaanan xadgudub ila wa dulman darbaro fasawfa mardan muslihi garidoonahu ilaahi naar ayaan garidoonaa wa kana dalika naar illa gariyana yasir wa midu furuq allah ilaahi kulkiisa إن تجتنبوا هذا كفراتان إلهي كبائر ما شيء كويس ووين تنهمنا لنكرر عن حديثة دنوب لنكرر على رأي قيب سنطان كبائر دنوب ووين إيا صغائر دنوب مدى صحيرية مدى ووين هذا كفراتان إلهي نكفر ونصرنا عنكم حدين سيئاتكم حنيالكنا صغائر كان يوقع فينا إلهي دنوب تواوين كفدان شديدة إلهي سقائر توقفك وضعفا لكن كبائر تكرابي كبرا آمن فربانتا كبائر توقع كمدا في حديث صحيحينك وحويان الصدق المبقى تدرد الدنبي إيدك حلاكته النبي صلى الله عليه وسلم وتدرد الدنبي وحلاكته كفر هذا تدرد صحيحنا لرسولك الله أشركم بالله إلهي يشرك يرأيوها الرئيضة
كاللبات وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا الدلو نفس إلهي حرام تنمي الدل كده إلا حق يقدر يماهن تتقفك الدلي أوكي فالصدحاتنا والسحرك دلو تدك هلاكتك كبائر تقوى وين كان أفرادنا وأكل الربا والربا الله كشنابنا وأكل مال اليتيم مالك أغورك الله وظلم الوغرة بريك ربها الوحنين كان لحادنا وتولي يوم الزحف مالك مسلم يقال دغالما يان أو لغا عرب الدغال كان وحويا تضرابنا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات تقبلها مؤمناتك دورسان الزنوبة كفر كريم قولي روا زانيقات تضرابنا عبد الله بن عباس وحيري هم إلى 70 أقرب من الصف تضرابنا إن مقدار كبائرته تضرابنا يقولوا إذا سأتنا الحافظ الذهبي تنفيس كبائرك تضرابا كبير كوكو مركز كذب من ولد الحديث بران سرديين أو تسيد الدروب كلو كبائر أو سيشيغ بل أفر بقول يكونتوا الجاتين من حاجة الهيكل شو ما جديد الزواج عن اقتراف الكبائر أفر بقول يؤمن بالجاسين هاي ما قلنا قصي بدية مركز على كل حال دروب كبائرك إلا كريو وحا أبدو إلا حديو وحا يدن علماء الكبائر وحلوية كان دنبي فاستقعوا ليرادة الدون كقفل سنة حق الله شيئا وكبير هدي وعيد كسو أرورو ليرادة آخرة الوعدادانا وكبير هدي إيمانك لغا فيه لرقفة سنة إيمان مالي وكبير هدي ونغوه وحويا لرقفة سنة لعنة أن الله لعنة دنبي سنة وكبير هدي ليرادة عرق الله كبعدنا وكبير شنطاس علامة أبوه وين ولغو دارتا كبائرت إلهي سبحانه هدات كبائرك كفداتا ذنوبتنا إن انضافا وإن كأسطرا وندخلكم وحنا إن درنا ندخل مكان الدليل فاسو كريم وذاك